helay KCK iyo Dirisle abdi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan asxaabta ku soo dhawaada waa YouTube channelkii walaalkiin Kaariye Films and Flowers. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij ku saabsan KCK iyo Dirisle abdi sababta ay social media uga maqan yihiin ama waxyaabaha hoos u dhaca ku keenay dhammaan wax kasta oo ku saabsan YouTube-badoodii ragii YouTube-ka shidan jiray ee YouTube-ka iyo social media dhan saameynta ku lahaa hadda waxa helay ayaa raba maanta qodobada saameeyay iyo dhibaatooyinka haleelay raggaasi hoos u dhigay ayaa raba inaan ka hadlo fadlan haddii tahay markii koowaad subscribe iyo like video-ga saar haddaba su'aasha dad badan madaxooda ka guuxasa ee qof kasta oo social media gaar ahaan Soomaalida ku jirta ay isweydiiso oo laga yaabo haddii aanad xitaa kor u qaadin ama aan cid kale weydiin aad adigu naftaada isweydiiso waxa weeye raggii CK ee 4 sano social media haystay Messi iyo Cristiano ka ahaa hadda maxaa helay waa YouTube-ka iyaga ugu saameyn badnaa jiray inta badan waxa la saddex mari jiray waxyaabaha iyaga maaragtaan ay hadii isku dhacaan oo kale waa la hadlayn jiray hadii ay wax yar mid soo yiraahaba hebel baa yiri baa loolan jiray marka de runta laga sheego oo Soomaalida aan cidna la xaqirin labadoodaas ugu saameyn badnaa hadaba arrinka raba inaan maanta ka hadlo waxa weeyaan maxaa helay KCK iyo Dirisle abdi sababta YouTube-ka hoos ugu dhacay waxa kamid ah ma creating views laga hadlo la yiraahdo views-kiiba hoos u dhacay laakiin waxa ka weyn in aan sidii hore active ahayn ama aan mar walba laga heli karin imika tusaale sawirka ka muuqdo waxa weeyaan Dirisle abdi waxa aragtaa in ay u dhaxayso week ama ugu yaraan shalay oo kale soo dhigaya shaqo bacdi video soo dhigaya marka qaar baa laga yaabaa bilba soo dhigin si keenay si lamid ah isagana halkaas aad ka aragtaa inta u dhaxaysa qodob ayaan ku soo koobaya waxyaabaha saameeyay wax raba inaan qodob u dul istaago qodobkii iyo sababtiisaba aan israaciyo ana horena ka bilaabanayo aan waqti badan naga qaadanin qodobka koowaad waxaan ka dhigi doonaa oo hoos u dhac weyn ku keenay waxa laga yaabaa in dad bari la yaabaan laakiin waxa weeyaan inay u heshiiyeen heshiiskoodii ay video soo wada duubeen ee ay wada fadhiisteen ee de macna yiraahdeen Soomaaliya waan saamaxnay labadii nin ee isku laab xaadeen horta hoos u dhac weyn buu keenay hadaba su'aasha isweydiinaysa waxa weeyaan in laba qof heshiiyaan si hoos u dhac ugu tahay laba qof oo social media ku tartamay oo wax ka dhaxeeyaan oo isku barnaamij ku jiro oo mid walba uu isku dayo inuu dad kasbado ama uu dadka ka qaada ka kale waxay keenaysaa in labadooda qof horta dadaalaan maalin kasta markuu tusaale ahaan midkood uu video soo dhigo oo kii kale aanu soo dhigin waxa ku adkaanaysa inuu video la seexdo waxa isku dayay inuu helo video ka hadlo waxa isku dayay inuu maaragtaane dadaal badan bixiyo taasoo keenaysa inuu qof kasta halkii maalin bay noqonayso isagoo laba video saddex video meelaha soo dhigaya in qofku uu cadow yeeshaana markasta waxay keentaa inuu guulo gaaro haday wada ogtiinba qofku inuu cadow yeesho ama uu yeesho qof kale uu la ficiltamo oo la tartamo waxa kaliya ta imanaya inuu hore u socdo social media dad dhamaantiisa eegta si guud kaliya YouTube ma aha laba qof oo kasta oo isqabsada magacoodu ma korsi ka waana sababta dadka qaar iyagu oo aan xitaa xoog ka dhaxayn heshiisa inay barnaamij dagaal ah ay u abuuraan oo iska dhigan dad isleey marka labadoodii oo isleen jiray waxay ahayd oo ka qaldantay qaabku heshiiyeen waxay ahayd in ay heshiiyeen hoos ka heshiiyeen laakiin xagga social media inay ka heshiin si dhamaan dad nin walba taageerihiisa u haysto hadda taageero ma laha gooniya imika qofkii CK taageeri jiray khaaska oo hayo dhiman jiray Dirisle wuxuu arkaa nin kale si saaxiibkooda marka labadii ninba de faru ka qaado mar hadda dagaalka meesha ka baxay maxaa la suugiya Soomaalida caadifo jeceshooda ogtayo laba qof way siriinayeen ayuunba marna kala reebta marna isku dirta laakiin labada qof oo ay iska wada soo cidna la hadlamayso oo la iska baydhaya horta heshiiskooda hoos u dhac weyn ku keenay iyaguna way ogyiin waan ogahay mid kasta uu ogyahay in hoos u dhac ku imaaday kadib heshiiskoodii sababtu tahay de wax ficil gelinaya ama keenaya inuu hore u socdo qofkii ama uu isla hebel boo ka sameeyay de iyagii baa isku mid ah soo wacay isla hadlay war maanta niyad ma hayo hoos u dhac ayay imanayaan qodobka labaad oo isaguna keenay inay hoos u dhac ku imaado labadoodaas soo bixitaanka TikTok inuu TikTok soo baxo wax kasta oo horta imaado waxa khayr kasta bilaayis leeyahay macna wax kasta oo soo baxo cid wanaagsan cid buu yahay TikTok soo bixitaankeedii dhibaatada ugu weyn waxay ku keentay Soomaalida YouTuberada Soomaaliduna si kale ah gaar ahaan CK iyo Dirisle sababtu tahay CK iyo Dirisle badankooda waxay ka hadli jireen waxa reaction oo inay reaction ka bixiyaan inay barnaamijka maalmaha social media haysta ay ka hadlaan oo yiraahdaan maanta waxaan nool barigiisa isagoo stress oo raaxaysan ay ka dhiibto taasina waxay keentay in meeshiiba TikTok imaado
boqolaal qof oo kale ay soo baxaan aan wixii maaragtaanay ay saameyn weyn ku yeelato hoos dhac ku imaado YouTube-kiiba aan hadalhayntiisa yaraato oo qofkii maaragtay xitaa maalmaha la wado qof TikTok laga helay inuu noqdo oo qofkii xitaa YouTube-ka heesii la raadsan jiray inta ugu macaan ba la soo dhigo TikTok oo TikTok laga daawado qodobka saddexaad ee isaguna saameynta ku yeeshay hoos dhacooda oo ogahay qof kasta marka aan u sheego ama aan sheego uu dareemi karo oo karo wariyaa walaa warun inaynaba lahayn bal labadoodiba Dirisle iyo CK plan B waxa la yiraahdo oo ah inay hadii la arrinkan iska xiro sidoo ogtiinba hore waxay oran jireen YouTube wax lagu waari kara maaha caalam macna plan B baan leenahay wax saasa ma garan karayna soo wadaan oo hadii soo wadaan waa arrin kale laakiin plan B ilaa hadda mid muujiye ma jiro labadooduba waxay ahaayeen YouTube ka wada islaayis qabsada tartama laakiin markii ay heshiiyeen ka bacdi ee TikTok soo baxday wax moodaa inay ku adkaatay wadadii ay kaga bixi laayeen ama sidii ay hore u sii qabsan laayeen oo saameyntii social media ay soo cilaayeen ku adkaatay qodobka afraad oo ah isaguna mid aad u muhiim ah oo isaga hoos u dhac ku keenay waxa weeyaan bariga hore Saawdoogeen san hore boo sheegay waxay aad uga hadli jireen social media waxa ka socda salahan qof maanta arrin aan hore loo arag Soomaalida hadii doonto ha noqoto qof geed yiri dawaati oran jirtay wali waa laalaya hadalladoodu kadiska ee ka soo dhex bixi jiray social media rayooday ka dhibi jiray nin walba isoo ku raaxaysanaya Dirisle soo hadlaya fikirka maskaxdiisa ku soo dhaco soo sheegi jiray CK saasileeg nin walba taageerayaashiisu way ku raaci jireen markii ku raaci waayaan way iska sabri jireen soo jireen ka dambe ay ka sixi doonaa laakiin hadda wax isbedel weyn baa imaaday TikTok soo soo baxday qof uu tusaalahaan social media qabsanay uu ka hadlaya qofkii qof walba ma iimaan karo hadii uu qofkii sheego waxyaabo uu ku xun yahay eegada oo qofkii sheego ila qofkaasi halka ah u dhiceeyay salaano kale inaan daalkaas soo ruuxa soo kala oo aad uga boodeen oo dhaqan xumo yaala timaaday haduu dhaw inaan taas waa saysa bariga hore dawal isku raaci jiray wax loo jeego la horuti hadda laakiin wala xisaabinaya wala xisaabtama waxa loo oranaya horta qoftan uu waa qolama waa reebel isagoo waa reebel halka waxa ka cadin inuu duulaan u yahay social media ugu tagay TikTok isagoo isagiisii la chafay leeyahay inaan taydi wacay maadaama TikTok ayna kaliya TikTok ahayn ay qabyaalad ku jirto qofkii ma kala taabto doon halka bimis qawiyo qabiil baa daba taagan oo anaga naga caay labadoodina dhibaato ku noqoto iska dhaaf xitaa ciiday isku ciidayiin haduu mid walba caayo qaar kale isku ciidin baa soo wacay oo warnin ma anaga naga dhex bilowday miyaadna dhaaf kar weeyday ma anaga reerkaagi ku soo jeesatay miyaa lagu soo diray basaas baatay marka ragiiba waxay ka niyad jabeenba inay qofba soo qaataan qofkii soo qaadaanba te afka la goosan wax leeyahay san uga jeedaa waday ogda dhiiqaasal waa lagu jiraa loo isku galeeyay midka qodobka shanaad oo isaguna ciladiisa wata waxa weeyaan wix lacagtii ay shaqeyn jireen waa lacagtii YouTube ka shaqeyn jireen lacagtii YouTube ka shaqeyn jireen tusaale ahaan bil intii ku soo dhici jirtay dhowr habeen oo TikTok live fadhiistaba lacagtii buu dhiganta qof walbana markuu arko marka hore ujeedadiisu ay heedan lacag ka helo oo in oran karna malaha ujeedadu ugu badan YouTube u jira waxa ay u lacag markuu lacagti meel ka dhow ka helo oo live kaas uma soo galaysa qof live maanta dhow ku jirana uu yar xiisa dhacay wala ogiyo in live ka lagu jeclaaday ma sheegin laakiin marka kale ay video soo diyaarinayo cidi ku mashquul mayso live kii lacagti keenaya kadib waxa imanaysa in lacagtiiba markuu arko lacagtii helay wax weyn oo sii kiciyo YouTube ki geeyay oo video ku kalifaa meesha uu ka baxaya taasina dhibaato kale ay ku keentay hoos u dhaca in lacagtii live ka laga soo diriyay bay ka fududaatay lacagtii intaas oo bilowday shaqeynay labada qodob oo dambeeyay oo iyaguna dhibaatada ku keenay baan rabaa in raaciyo oo mid yahay in dadkii Soomaalida dhamaan boqolkii qof ee social media isticmaala 10 kamid ah waa caan oo caankii ay aad u batay dabadna waxay noqotay in qof kasta oo uu ka maaragtaan isqabtay sidaahanba وسجينا سوق قبصنا حتى عدد كيان سوشيال ميديا استعمال تشين برجورة تيك توك بقى أقوى شيء لقى قبنا يا لايف وهالمرسوق اللي يحبوا كتشوهبيه تقال كهدي تاي هدي وحياة كل إسكو شيء تاي هدي فكر كأقول سوق بنستاي لايف كي تيك توك بقى قبصي مركا تذكي ورنا عنقي ما أنت برجورة سوشيال ميديا مركز سوق وحير كتير برنامج وشل دياريسي كي درسه يجي هذا اللي بقارنة ديك صور شيئين قارة تاجرسين لكن ما أنتوا صوته سيا بقلال قف أكل هذا الحي وحلا لايف كلا سامين تبى ماشي كبحثي مركا لايف كاس ودتك عنك ودقي أيه يدونه وحويه سامين كيهالتين هذا بقول قدام بي الربع ما أنت أصحاب تقف كسؤال كنيسو قلنا على فيديو ولا سنة لايك صاروا
waxa weeyaan cashuurta dalka Austria oo labadooduba ku wada noolaan hal dal ma garan kareen dalal kale la mid yihiin laakiin Austria maadaama ay ahayn dal leh sida tusaalahan badoo kale ama ganacsiyo waaweyn caalami lahayn lacagtan ay ku nooshay ay lacagleedu ku noqotay waxay u badan tahay cashuur waa dadka dhididkooda ayuu mi kala bar qaadanayaan cashuurtu waliba waxay dhibaato kale ku keenaysaa qof kasto qofka lacag badan lacagta laga qaada badanaas Austria ma garan kara wadamada kale la mid yihiin laakiin dhaqanka Austria baa leh waan u maleynaa waliba Europe la mid tahay ama ku dhawdahay tusaalahan imaka hadii tusaale ka soo qaadano $10,000 labadooda mid ahaan YouTube kuga soo dhacdo 5,000 horta waxay noqonaysaa ku dhawaad ama 4 ama 5 waxay noqonaysaa cashuuro iyo caafimaad iyo waxaas ku baxaysa waliba hal mar la goosanayo kaliya waxa uu soo dhacayo 6,000 hadii ku bato ama 5,000 10,000 adoo shaqeeyo 6,000 lagu keenayna ugu badnaan qof walba dareemi kara xanuunka leedahay taasina niyad jab ku keento waa sababa keentay midba YouTube-badoodii badiyaan hadii kale ay wixii maaragtay ka calaacalan una si dheertay hadii hal mar uu cashuurtii si fiican bixi waayo intaasoo kun ay la iska garaaxay waxa soo ninka lacag soo dhaca waba chance ba daba galayaan taasina dhibaatooyin ku keentay qodobadaas aan jeclaystay oo ah social media-oodi waxyaabihii dadka Soomaalida ka guuxay ee hoos u dhigay in ahayd qof kasta oo kale soo gaaray waxaan rajeynayaa inuu channel-ka subscribe saaro kan iyo video kan ka xiga